kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa magacawday xidigaha maamulka iyo hogaaminta safka koowaad ee noqonaya kabtanka koowaad, labaad, saddexaad iyo afaraad kadib markii uu Barcelona ka tagay Leo Messi kaas oo ku biiray kooxda PSG. Leo Messi oo ahaa kabtanka Barcelona tan iyo markii uu ka tagay Andres Iniesta ayaa wuxuu macsalaamiyay kooxda, taasi waxay keentay inay banaanadaan booskii ka ciyaarayay iyo midkii hogaaminta ee kabtannimada. Kabtanka koowaad ee Barcelona ayaa waxaa loo doortay oo bedel Leo Messi rugcadaaga khadka dhexe Sergio Busquets oo xiri doono calaamada gacanta iyadoo horena uu ahay kabtanka ku-xigeenka kooxda Barcelona, waxaana ku xiga Gerard Piqué oo noqonaya kabtanka ku-xigeenka kooxda Barcelona, halka saddexaad uu noqon doono Sergio Roberto, afaraadna waxaa noqon doono Jordi Alba. Saddexda ciyaartooy ee horey Sergio Busquets, Gerard Piqué iyo Sergio Roberto ayaa hore u ahay kabtan ku-xigeenadii xilliyeedkii hore, waxaase hadda lagu soo daray difaaca bidix ee Jordi Alba oo kabtannimada xiri jiray markii ay maqan yihiin saddexdan ciyaartooy iyo Leo Messi. dhammaan afartan ciyaartooy isku xiga ee kabtannimada kooxda kula dambeeya ayaa waxay ka soo baxeen kuliyadda da'yarta ee Barcelona ee La Masia. kabtannimadii ka horeysay sida Leo Messi, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Carlos Puyol ayaguna sidan oo kale waxay ka soo baxeen kuliyadda da'yarta ee La Masia.